xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada gobolka Mudug sida warkan uu ku soo diray Salim Daahir Yuusuf. gudoomiyaha hay'adda difaaca xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeesheen dagaaladu dadka birmageydada ee ku dhaqan magaaladaasi Gaalkacyo oo sheegay in ay gaboodfalyo ka dhan ah dadkaasi u geysteen dagaaladu isla markaana ay mas'uuliyadeeda leeyihiin dadka dagaaladaasi horinaya. waxaa ku dhintay dad rayid ah oo gaaraya ilaa 70 ruux waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo kor u dhaafaya ilaa 100 waxaana ku barakacay kumanaan qoys kuna guryo beelay waxaa ku waxbarasho waayay kumanaan arday ah oo fara badan waxaa hoos u dhacay ganacsiga gaar ahaan dadka masaakiinta ee garab rartada ah wuxuu saameyn ku yeeshay dhinac kasta oo nolosha bulshada ku dhaqan Gaalkacyo iyadoo laga duulayo maqaasida shariicada islaamka xeerarka caalamiga xeerarka dalka iyo aqliga saliimka ah waxa waajib ah in la dhowro dhiigga qofka aadanaha ah laga fogaado in lagu diriiro goobaha rayidku degan yihiin la ilaaliyo isbitaalada dugsiyada masaajida kalkaaliyaasha caafimaadka iyo gawaarida caafimaadka. xafiisku waxa uu baaqay madaxda Puntland iyo Galmudug oo uu sheegay in arrimaha noocan ah ay ka waantoomaan isla markaana xabadda laga daayo dadka danyarta oo ku tabaalaysan deegaanada magaalada Gaalkacyo oo muddo bil ah dagaal ka socdeen iyada oo dagaalkii ugu dambeeyayna uu sheegay in dadka ku geeriyooday ay gaarayaan 70 qof isla markaana dagaalkaasi aan la garanayn wax qorshe oo laga leeyahay. waxaa xasuusinaya dawladda dadka reer Puntland iyo kuwa reer Galmudug in ay garwaaqsadaan duruufta qalafsan ee ay marayso Soomaaliya sida abaaraha biyo iyo baad la'aanta ka jirta miyiga dadka danyarta ee barakacay ee geedaha hoostiisa ku dayacan in ay tixgeliyaan gargaarka iyo samata bixinta dadka mudnaanta koowaadna ay siiyaan dadka miyiga iyo dunyadooda ay mataqaana ku baaba'ayso in dhaqaalaha iyo xoogga la gelinayo dirirta loo wajaho dhinaca gargaarka iyo samata bixinta bulshooyinka. waxaan ka codsanaynaa dhinacyada dirirta ka aloosan Gaalkacyo ka dhaxayso inay dagaalka joojiyaan 1 isugu yimaadaan gogosha wada hadalka 2 aragti dheer oo geesinimo leh lagu aqbalo xabad joojinta ay ku heshiiyeen madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha maamulka Galmudug ee magaalada dalka Imaaraadka Carabta in waxgaradka culimada aqoon-yahanka qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka dhalinyarada ay ka qayb qaataan wada xaajoodka iyo wada hadalka iyo joojinta dhiigga ku qubanaya Gaalkacyo. Maxamed Salim, Somali Cable TV, Garowe.